وعن مركل داوديال كسو دواada warkii oo intii hore ka faahfaahsan kulanka looga hadlayo maqaamka caasimada Muqdisho oo maanta Muqdisho ka furmay waxa warkan inoo faahfaahinaya wariyaheena Aadan Macalin Aadaamo wasaaradda dastuurka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa qabatay kulan wax la isaga weydiinayo maqaamka Muqdisho iyo waxa uu ka leeyahay dastuurka kulankan isaga ah waxa ka qayb galay mas'uuliyiinta maamulka gobolka Banaadir oo horkacayo gudoomiyaha xildhibaano wasiiro iyo xubno ka socday beesha caalamka gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho mudane Umar Maxamuud Maxamed Umar Filish oo ku hadlaya magaca bulshada Muqdisho ayaa yiri inaan idin kala soo qayb galo subaxdan shirkan waxaan halkan idinku soo gudbinayaa aragtida ku aadan statuska ama maqaamka caasimada Muqdisho iyo gobolka Banaadir wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Cabdi Maxamed Sabriye ayaa sharaxay muhiimadda ay leedahay Muqdisho oo maqaam yeelata wasiirka wasaaradda arrimaha dastuurka xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Saalax Axmed Jaamac ayaa sharaxaad ka bixiyay iswaafajinta dib u eegista dastuurka qabya qoraalka ah iyo waliba maqaamka magaalada Muqdisho dhamaystirka dastuurka waxa ka mid ah ugu mudnaa bulshooyinka ballaaran ee ku dhaqan magaalada Muqdisho oo ah caasimadda dalka Soomaaliya in maqaamkeeda si hubanti ah hal mar meel la isla dhigo dadkaasi waa dad ku nool duruufo adag oo amni darro iyadoo sidaa tahay bay haddana dawladdu martigeliyaan inta badan wadadii baa laga xidhayaa amni darro dhacaysa culaysyo u gaara ayay ku noolyihiin marka waajibna saaran weeye in su'aasha jawaabteedu ay soo dhawaato si loo helo marka autonomy maamulku uu helo wuxuu helayaa administrative autonomy xag maamul xag dhaqaale iyo xag xuquuqeed taas waxay wanaajinaysaa oo kobcinaysaa dawlad wanaagga marka xulashooyinka kala duwan ee suurtagali kara waxay noo soo bandhigi doonaa howlwadeennada wasaaradda arrimaha gudaha oo inala wadaagaya hababka ugu habboon ee adduun weynuhu uu u maareeyay maqaamka caasimadahooda iyo xaaladaha inaga inagu geedaan sidii loo eegi lahaa abwaanka weyn ee Soomaaliyeed ee la yiraahdo Maxamed Ibraahim Warsame Hadraawi ayaa toddobaadmeeyay u gabiyay magaaladan